qarax ismiidaamin ah oo qof isku soo xiray ayaa waxa uu ka dhacay xarunta saddexda geed oo ku taala degmada Shangaani gobolka Banaadir waxayna u dhowdaa xarunta qarax oo ka dhacay saldhigga degmada. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قيمة يقدرتها نجمودنا وملك استوى دافع الدنيا ذيك السجنتين حلقة استيني تابع وعنا ونعكسن هديتها كل إنك جوهر يتصاب وقت كان كفرخان يتفضل هالمام نستسكرب تناصر تصينا الشرق ليس لك تنعت صارته موضوع عن موضوع هو أو كدوية هي مجال ده من قديشو أي قرح اسمي دامين كدع هلك سوء يقول يران كل إنتين له قف هلك أي كوبي توقفنا أي كل دعوامين haddaba waxaan tacsi halkan uga diraynaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay dadkaasi ka dhinteen iyo waliba ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ay ka bixeenba waxaan leeyahay ilaahay samiriye iimaan haynaga siiyo haddaba bal goobjoogayaashii oo ka warramay sidoo qaraxa u dhacay ayaynu wada daawano ruux dhaawacun wuxuu gaarayaa ilaa 12 ruux welina ambalastu waxay ka daabulaysaa goobtii dhaawacyadii qaraxaasi ka dhashay waxa goobta yimid ciidamada booliiska oo xiray gabi ahaanba halkii qarax uu ka dhacay xarunta saddexda geed ayaa waxay tahay goob inta badan ay isugu yimaadaan dadkuna ay ku fiirsadaan waxayna goobtaasi ay tahay goob shaah lagu cabo cabitaanada isu soo taraya iyagana waa aad dhageysateen maalin walba waxa ku nafwaaya dhalinyaro iyo waliba cuqaal wax garad haddaba ilaa hadda ma la isweydiiyay halka ay sarto ka qurunta iyo ciida waxaan ka dambaysa iyo waliba dadka aan waxba galabsan ee maalin walba la laynayo maalin walba tacsi ayaa la dira waxaan lagama qabto dawladdu maalin walba ninka kursiga doonaya ayuunba dadka u soo baahda laakiin inta kale lagama hadlo lama soo afjari kari waayeen dhibaatada xamarkuun haysata ee aan adduunka kala haysan haddaba ilaa hadda maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay soo taraya qaraxyada istabajooga iyo waliba hooyooyinka maalin walba goblamaya kuwaas oo aan wax yaraatay cidiba ka hadlin nin waliba marka uu kursiga doonaya ama marka uu dan leeyahay ayuu umbu ka hadla laakiin shacabkii ummadda Soomaaliyeed ee halka ku baaba'aysa cid ummadda maqato cidina uma hadasho maalin walba waxa naftooda ku waayay 18 jiro 15 jiro iyo waliba 12 jiro kuwii dalka iyo dadkaba u soo kacay ee la doonayay in ay bari wax ka bedelaan haddaba cida waxaan ka dambaysa iyo cida waxaan soo abaabulaysa ma la isweydiiyay halka ay ka yimaadaan iyo xagga ay ku socdaan waxay 230 sano ayaa Muqdisho u gubanaysa haddaba waa maxay sababta ka dambaysa inay Muqdisho dhibaato haysato haddaba inagu waxaynu awoodnaa mar walba inaynu Ilaahay u barano in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado dadka Soomaaliyeed iyo waliba walaalaheen dhibaatadu ay haysato haddaba dawladda ayaa ka gaabisay iyadoo waliba dhankeeda amniga waxa uu xil saaran yihiin waa dawladda haddaba shacabka iyagu ma ka hadlaan arrintan oo nabadda ma raadiyaan waxa jirta dhibaatooyinka is soo daraya marba marka ka dambaysa maalinba maalinta ka dambaysa waxa hawada ka sii baxaysa nabadda waliba kuwaas oo qaraxyo istabajooga ay ka dhacaan kuwaas oo lagu bartilmaameedsado goobaha ay isku yimaadaan dhalinyarada iyo waliba dadka wax garadka waa bulsho mar walba la beegsanayo ama war walba la eeganayo hal doorkeeda iyo waliba kuwii hore u wadi lahaa mar walbana waxa la bartilmaameedsada cid gaara iyo waliba goobo cayiman haddaba dawladdu ma isweydiisay iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ma isweydiiyeen meesha ay sartu ka quruntay ilaa haddana aanay waxba ka soconayn mar walba iyo maalin walba tacsiba la diraa balse waxba lagama qabto lamana soo afjaro dawladda Soomaaliya ayaa xoog badan oo waliba dad badan oo taageera dawladda badan oo taageera iyo waliba ciidamo fara badan oo lagu qarash gareeyo ayaan ilaa hadda soo afjarin dhibaatooyinka taagan magaalada Muqdisho iyo mid darrada iyo cida waxaan ka dambaysa haddaba ceeloma qadna cidina uma maqnee waxa jirta in ay shacabku tashadaan iyagu oo waliba ay cid walba farta ku fiiqaan iyo meeshii wax ka soo galayaan iyo meeshii ay wax ka jiraanba 230 sano ayaan dawladdu soo afjari karin waxyaabaha xamaruun ka taagan ee aan adduunka kale ka taagnayn magaalooyinka kale kama taagna ee xamaruun waa maxay dhibaatada xamar ku aabsatay ee aan adduunka kale ka jirin lama soo afjari kari waayeen hal maalin bil sanad iyo 230 sano toona laakiin meesha ay sartu ka quluntay ilaa hadda waa la isweydiinaya shacabku way jaha wareersan yihiin dadka Soomaaliyeed kalena waa ay jaha wareereen
meesha ay wax ka socon laayihiin meesha ay sartu ka quruntay iyo meeshan aanay waxba ka soo naasacadayn haddaba xagee lagu socdaa xageese loo guurayaa maalinba maalinta ka dambaysa ninka kursiga uu doonaya ama kursiga ku loolamaya ayuunbaa raba in uu dadka ku guuro oo dhan waxbaan bedelaya haddana halkii waxba lagama sii bedelo dadka Soomaaliyeed haddaba waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inay Muqdisho nabad noqoto oo Muqdisho oo la arko Muqdishadeedii hore ah haddaba ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka kaga nool yihiin inta codkayga gaari doona iyo inta dhageysan doontaba waxa aan ka codsanayaa inay si naxariis leh ay ugu soo duceeyaan walaalahooda Muqdisho ku sugan ee ku dhibaataysan maalinba maalinta ka dambaysa qaraxyada ismiidaaminta ay la kulmayaan dad aan waxba galabsan hooyooyin shaqaysanaya iyo weliba dhalinyaro aan waxba galabsan kuwaas oo la leynayo maalinba maalinta ka dambaysana xaaladdu hawada isku sii shareerayso dadka kursiga raadinaya waxa ay raadiyaan kursi laakiin dadka mustaqbalkooda iyo aayahooda kama waramaan iyo xagga ay u jahaynayaan iyo sida ay doonayaan inay nabadda u sugaan maalin walba ninka isu soo xaydxaydaya waxa uu rabaa in kursiga ku kacsado wixiisa iyo hadaladiisa laakiin halka kama sii aan baqaado waxaan u maleynayaa islaam baa waxa laga hayaa ninka xoog weyn inanteed waxba kama dhali waayeen waa uu xaasidaya haddaba halka ay wax ka soconayeen ma dawladda ma shacabka ma dad kala haddaba awoodda ay dawladdu ay leedahay mala umay waayin in ay amniga ku sugto laakiin iyada qudheeda ayaan daacad ka ahayn nin waliba waa uu soo shaqo taga nin walibana waxa uu marka uu dan leeyahay buu yimaada balse marka kale ma yimaado maalin walba waxa goblama maalin walba waxa naftooda ku waaya dad aan waxba galabsan dad yoomal u soo shaqo taga caruurtooda eheladooda ayaa maalin walba ku naf waaya dad aan waxba galabsan dad aan wax alaala waxay sameeyeen aanay jirin ayaa maalin walba la dilaa saacad oo badheedha oo aan geed la isku soo toosin haddaba waxaan tacsi uga dirayaa dadkii iyo heladii ay ka baxeen qaraxii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo ay dad badan ku naf waayeen haddaba waxaan leeyahay inna ilayna wa inna ilayna raajicuun waxaan halkan tacsi uga dirayaa qaranka Soomaaliyeed ay ka baxeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maalin walba lagu leynayo magaalada Muqdisho kuwaasoo is soo taraya marba marka ka dambaysa waxa maalin walba ooyeyso waa hooyo maalin walba waxa nafteeda ku waayeysa waa hooyo iyo weliba waxgaradka iyo culimaadiinta dadka xaqliga u saaxiibka ayaa maalin walba la bartilmaameedsadaa kuwaasoo aan haba yaraatee aan geed la isku soo toosin haddaba anigoo muumin abraasa waxaan kaga tagay intaan video loo kulmaynayn kaga tagay